afkaada iyo dhagahaada isma maqlaan. Axmed Rashiid wuu ku imaaday, wuu ku canaantay, meesha dhilla calasay buu tegey. Anaa maqlaayay, wuxuu dhahay gabadhaasuu dhahay waa gabar ogaadeene, waa in adeertay buu dhahay, walaalkay baa qabo, gabadhaa afkaada gabadhaa magaceeda ka bixi, anaa joogay. aduu ku imaaday wuu ku canaantay, waan ogeen. Yes baan dhahnay, walaalkay Axmed Rashiid waa walaalkay aniga iga weyn. Weligiis kuma caayin, wuu kuu hiiliyaa. laakiin dadka hadalka ee dhahana u raacda waa ku arkay. Axmed Rashiid haddii laho bob waa soo boodaysaa, seflabood baa tahay. Horta taas adi waxaasoo kale private uga hadlaynaa meeshan publica haygala hadlay wax publican kaala hadli mee, adigaan ku kalbeynayaa waryaa. waad fududdahay, faraskaadana waa ka dheeraysaa. shalay ba aad waxa ogaadeen cayday oo intaan ogaadeen iyo reerka dhan intaan isku keenay aan aniga mas-uulka ka ahaa oo aniga aan raaligeli bixi aan ku dhahay. gabadhii kale ogaadeen sheegatana aan aniga mas-uulka ahay oo reerka majeerteena walaaladeen aan raaligelinay. sidan a hadda ku jirto si lagu noolaan kara private wax la dhaanaa waso. sidan a ku jirto laguma noolaan karo. adna hadda saarta inaad ku noolaato, hadda arta inaad sidan ku noolaato, wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaad heer gaarin.